بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنت كسر قيب قلي بندقنا محفلة وحكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالمدنا مدق ذني وحي كتمي وراها كنا الودن كندا قارها مغالا تورنتو وقناعستو دقان سوق ليلاد القاب مغالا تورنتو كوا سو ودقي وراها هذا كنا الدقمة وفين alaabtaas iyo raashinka iyo dharkaas aragtaaniin iyagoo aan walaalaha Soomaaliyeed ee magaalada ku nooli ay wakiil iga soo dhigteen anigoo ah gudoomiyaha ururka Kaalmo Social Development Organization Ali Jaamac Jibriil waxaan aragtaaniin inaan alaabtaas dadkii loogu talagalay aan ku wareejiyay run ahaantii dadka alaabtan soo dhiibay waa dad aan weligood u fayn arag oo waxa weeye aan magaalada laga yaabo in qof ka mid ah dadkan yaqaanaan haddana walaalahaasi waxay wakiiliga soo dhigeen inaan deeqda gaarsiiyo walaalaha ku nool degmada Ufayn waxa weeye kuwooga maartay ugu xaq leh waana aragtaan oo maqraanti waxa ka tiin inaan sidii ugu haboonayd alaabta ku soo gaarsiiyay dadkaas waxaan leeyahay marka dadkaas soo dhibay alaabtaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshii ka soo saarteen khayr qaba iyo bedel Allah subhanahu wa ta'ala haynu ku bedelo waxaan kaloo aan u sheegayo saxaafadda u marinaya amaanada ay soo dhiibteen dadkan si waa kuwa gadaashay taagan oo saxaafadda iyo dadka meesha taagan hadli doonaya maqraantiini ah waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo dadkii alaabtan soo ururiyay ganacsatada suuqa Elgaab magaalada Toronto wadan Canada gaar ahaan waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo Hawaye Ali Bagaad oo suurta gelisay in from Canada to Hargeysa alaabta lacagta lagu soo diray ay bixiso iyo Kaaha Abdi Odawa oo yana ka tirsan ganacsatada suuqaas oo ku nool magaalada Toronto ee wadan Canada iyo Qasi Faarax oo iyaduna kamid ah maamooyinka dukaamada kule magaalada Toronto wadan Canada waxaan kaloo mahad gaar u celinayaa walaashayda qaaliga ah ee barnaamijkan soo ururisay Kiin Ali Xaashi oo aan jeclahay inaan khadka soo geliyo iyadoo joogta meesha alaabta ka soo dhiibtay insha Allah ta'ala sida la adligeed waxaad dadweynaha maqraanti ka tihiin inaanan meelna marsan wixii laga soo dhiibay waxay ahaayeen dharkii baan geynay Boosaaso waxaan ku soo bedelay raashinka maadaama dharka laga isticmaalo Toronto iyo Canada iyo dharta Soomaaliya laga isticmaalo dadka masaakiinta aysan gashan karin dharkaas waxaan ku soo bedelay raashinka aragtaaniin dadka wuxuu gaari karona insha Allah ta'ala waan siinay wixii kale aan wax la gaari karona dib ayaan insha Allah ta'ala ka siin doona ana loo saburo yaan maartay lomoodin aan dad gaar ugu talagalay alaabtan marka hadalkii oo gaaban waxaan ku leeyahay walaalaha alaabtan soo dhiibay hawlka madaal wali waa hogadii walaalihiin wali way baahan yihiin oo waxa weeyaan way baahan yihiin waxa raba inaan ka kala jirin alaabtan oo markasta u soo dhiibtaan anaguna sidaas oo kale marka uu kulino soo dhigtaan ayaanu jecel lahay biidnillahi ta'ala inaanu alaabtaas insha Allah ta'ala sidaas oo kale u gaarsiino iyaguna way hadli doonaan oo ka maqraanti kici doonaan inaan alaabta gaarsiinay waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada iyo maartay dadweynaha igala shaqeeyay gaar ahaan saaxiibka Cabdikin Cabdullaahi iyo Ahmed Abshiri oo igala shaqeeyay inay alaabtan iyo hawshan suurta gasho waxaan kaloo u mahad celinayaa culimada Cabdirasaaq Bilage Soodo isaguna nagala qayb qaatay inaan barnaamijkan fulino isaguna ka hadli doona insha Allah ta'ala barnaamijkaas iyo alaabtaas halkaas ka yimaadeen gabdhaha Soomaaliyeed baa soo ururiyay anaguna waan soo gaarsiinay anaga ururka Kaalmo oo boolkiis halka ku oran yahay ahayna gudoomiyay ururkaas waxaan leenahay insha Allah ta'ala walaalahaasna waxaan leeyahay wada socod wacan idinkuna waxaan leeyahay markasta oo wakiinalo ku soo dhiibo insha Allah ta'ala waan soo gaarsiin doonaa waan ku soo gaabin waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah dhalinyarada ila shaqeynaysay Ahmed Abshir Saciid falyatafadal waxaan marxaanti ka nahay alaabtaas inay soo martay jaranjar dheer marka xiga waxaan u mahad celinaynaa bahda ku nool magaalada Canada Toronto magaalada Canada oo xil weyn iska soo saaray alaabatan soo dhiibisteedii iyo wada soo marinteedii wakiilka ahayd Kiin Ali Xaashi iyadana aad baan u salaameynaa waxaan leenahay meeshii aad alaabta ka soo saareen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan idinka baryaynaa bedel khayr inuu idin gasho
waxaana ujeedaan in alaabtiini maantay dadkii ku habboonaa in loo qaybshay wixii kaleeto oo dadkaas ay qadeen ah waxaanu rajaynaynaa insha allahu ininka ayaan idinka sugaynaa inaad dib ka keentaaniin. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. dhammaanteen waxa weeye waxaan xusuusinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala habsidiisa qofkana waxa weeye qofka muslimka ee arrintan hadda meesha loo joogo oo ah caawinadatan ee dadka muslimiinta ay soo dhiibeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu kaga hadlay qofka muslimka ay markii wixii uu baxsado Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa inuu ka helayo Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allahi huwa khayran wa a'zama ajra wixii aad bixisaan oo khayr ah oo aad Ilaahay dartii ula jeedaan waxa ilaad ka helaysaan Ilaahay agtiisa usoo inta ka badan oo ka khayr badan oo ka weyn. hay'adkeena la hadal dadweynaha la hadal dadkii alaabta u soo dhiibtay kiina waxaa ka mida kaaco islaamada waxaa ka mida omeya albabaar islaamada iyagana waxaa ka mida qafti faarax waa badan kuwa la soo sheegi kara laakiin dadka muhiimada ugu weyn sameeyey lacagtana alusha alaabta lagu soo raray iyo alaabada dooqa weyn ka qaatay doonqaasaa ka mid ah dadkii alaabta loo qaybiyey meesha jooga sidii maaragtaa dadka u kala liitaan inaa usiisaan waaye waxaana dowlada jazaakalla intii qaydisay xoog iska saartay dadkana waxay tadbiir kuna dadkaasna waa gaarsiinaya haddana waa ku gaaray insha allah waa u sheegaya inay alaabta helaan waxaan filayaa maaragtay inay tiifiyada ka fiirsanaan ama youtubeyada inay ka fiirsanaan sanadkaasna gacan iyo gruubkiisa unbaa samayn kara iyo waxaan leeyahay oo sawjaanta dowladda hadda hataa maaragtay gacanida ka siisana aad baan ugu noqonaya adiga waad mahadsantahay walaal waa mahadsantahay waxaan u mahad celinaynaa dadkan noogu yeeray meesha mar labaad waxaanu qolada labaad aan u mahad celinaynaa waxa weeye qoladana soo gaarsiisay maxaan ku idhaahday caawinada tan oo ka soo dhiibtay Toronto jaaliyadda ganacsatada ah oo dadka masaakiinka ugu soo tala gashay waana soo gaartay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol ilaahay ha idinku bedelo waxa ay qabaan adduunka iyo aakhiraba idin anfaca insha Allah annagana sidii aad baahida aad wax noogu soo dhiibteen waan wali idinku baahanahay ha naga daarinina ha naga maxaan ku dhahay wax yar iyo wax weyn wixii aad haatan noo awoodi kartaan waa idin mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقول هذا يمجع هو يدا وحن ما حد كارمنا تدكي لو كان معاونة داس يوه تدكي كسر شقية ويسلاميهن دمان وحنقول سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا لسوق جارسي معاونة داس آدي آد وناكسن أيانا لسي إلهي بما هاد إسكاله إن شاء الله ماشي لقاك يعني وحنا إلهي كبرينا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وحنا انت المسلمين تايو يسوتني وماشي يسوتني ورتني واسعون
waxaan wixaas wixii soo dhiibay oo dhulka keenay waa mahadinay oo waa nala siiyey oo waa si fiican baa naloo ku qorsheeyey oo waa mahadsan tihiin irsiq waasica allah idinku bedelo ilaahay iidankii wixii ka shaqeeyey oo keenay oo ku tabcana tacabkii naareed allaha ka dheeray allahuma salli calaa maxamed faatax